السلام عليكم دaawadyaal kusoo dhawaada video cusub sidaad wad ogtihiin listingka waxaa ka hartay 22 cisho ma naqaan hadda ka hor bisha June mise maartay July waxay dhaheen listingka wuxuu noqon doonaa xilligaas haddana waxay u soo dhigeen dib oo hadda dhamaan inta ku xiran maartay hamster combat waxay wada filinayaan tan inay noqon doonto maartay maalintii oo labada sugay in muddo ah oo ay soo list garay doonaan sidoo kale waxaa muhiim ah in uu wallet-kaaga inuu ku jiro maartay lacag waayo markii aad sameynaysid swap waxaa muhiim ah adigoon haysanin maartay gas fee macquul maaha maartay coins inaad baxsid mafahanti mar walba oo aad baxsanaysid airdrop waxaa muhiim ah maartay coin-ka aad ku swap garanaysid inuu kugu jiro lacag waad fahantay fila meesha oo ay ku qoran tahay withdraw waa markii la gaaro waaya maartay withdraw waay markii la gaaro qaybtan oo ay ku qoran tahay withdraw markii aad maadid then connect your ton keeper ana hadda wuxuu xiran yahay ton keeper sida loo soo degay wax walba video waxay idin ku tusiyay qaybta koowaad iyo qaybta labaad waayahay mawduuceena maanta wuxuu noqon doonaa qaybtan saddexaad oo ay tahay daily combogan waxaa macquula inaadan fahansaneyn waxaa macquula inaad dhowr oo bilood ku jirto laakiin oo aadan la bixin waxaan rabaa steebyada sida halkan looga baxo 5 milyan oo coin maalin walbo inaan idin tusiyo waayahay waxaa sameynaysaa waa trick oo aad iyo aad muhiim u ah dadka qaar waxaa moodaa coinskooda inay isaga khasaaranayaan sida hadda CEO marketing maartay IT team oo muhiim ah ma fahanti lacagtan waa u baahnaanaysaa coinskaas waxa ugu baahanaysaa ayaa hadda idin tusinaya waxa u baahanaysaa in aad daily combogan saddexdan kaar oo calaamad su'aal oo ay saaran tahay inaad furtid markii aad furtid maartay furtaankaas oo aad furaysid ayaad waxaad u baahanaysaa coinskaas marka ha iskaga khasaarin step ugu horeeya waxaad sameynaysaa waxay imaanaysaa column-ka waxaad ku qoraysaa daily combo hamster maartay combat markii aad qortid maanta taariikhda waa 4 wuxuu u egyahay macnaha steebyada sida maartay midka shalay oo kale maartay sida oo maartay daily sifarka ayuu u shabahaa laakiin kan wuxuu ka duwan yahay wax yar waayahay si aan u furno maartay kaarka maartay calaamadda su'aalka waxaan u baahanahay saddexdan ayaan u baahanahay lambarku waxaa tagaynaa special qaybta oo ay qortay special ayaa waxa ka dhaxli karnaa bitcoin visa day waxa maanaysa qaybtan special waatana markii aad tagtid special maxaa raadinaynaa oo ahaa waxaan raadinaynaa bitcoin visa day waxaa ka raadinaysaa halkan meesha oo ay ku qoran tahay new ee tagaysaa waxaa raadinaysaa bitcoin visa day waayahay qaybtan waxaa ku qoran bitcoin pizza day okay hadda waxaa sameynayaa waan ku dhufanayaa si aan u furo bitcoin visa day waxaan leeyahay waa fura halkan wuxuu leeyahay join okay go ahead markii aad joongare dhac waa isfuray lambarku waxaa isfuray midkii ugu horeysay haddii aan kor u soo noqdo waxaa arkaysaa halkan waxaa isfuray bitcoin pizza day okay waayahay lambar 2 waxaa imaanaynaa PR and team waxaan u baahanahay inaan soo furno welcome to Amsterdam marka welcome to Amsterdam kan waxaan ka dhaxelaynaa meesha oo ay qoran tahay PR and team waan joognaa waa PR and team market legal web3 iyo special welcome to Amsterdam waatana halkan waxaa ku qoran welcome to Amsterdam waxaa saaran qufla saaran waaye sidee loo furaa waxaa muhiim ah inaad tan ogaatid ma fahantii marka si uu ku furmo welcome to Amsterdam waxaa muhiim ah inaad soo furtid USDT on ton level 3 markii aad USDT on ton keeper macnaha on ton markii aad level 3 aad gaartid maaragtay marka level 3 aad gaartid markaas ayaa kan ku furmi karo marka hadda marka waa inaan raadinaa maaragtay USDT on ton si aan usoo furno welcome to Amsterdam waxay imaanayaa special waa kaarkan isticmaal waxay imaanayaa new card
waxaan kusoo bilaabayaa hoos USDT on ton haatana USDT on ton waayahay USDT on ton waa inaan gaarsiiyaa level 3 si uu igu furmo welcome to Amsterdam. Kan waa level 1 halkaas waxaa ku qormay 1 hadda waxaan geenayaa level 2 haddana waxaan geenayaa haddana waa level 3 hadda waxaa ii furan ilaa iyo level 3 marka waxaan kusoo laaban karayaa qaybta kale. hadda waxaan fiirinayaa hadda welcome to Amsterdam wuu furan yahay. Okay sorry waa kana welcome to Amsterdam wuu furan yahay. marka boom dhaho dhac wuxuu leeyahay coinkii labaad ayaa macnaha kaarka labaad ayaa furtay ayuu leeyahay. waayahay waxaa hadda rabnaa inaan raadino midka saddexaad oo ah web3 gudaheeda waa inaan kasoo dhex saarnaa NFT metaverse. waayahay qaybtan waa sidii oo kale ma fahantiin qaybtan imaanina waxaa muhiima inaan helno NFT metaverse waa kana wuu furan yahay. markii oo aan keliya waxaa leeyahay go ahead خلاص 5 million balancegay sidaas ayuu u darsamay. waa muhiim inaad fahantid waxaa laakiin aad iyo aad muhiim u ah fiiriya waxaa aad iyo aad muhiim u ah inaad fahantid haddii oo uu ka xiran yahay maarti coinka. tusaale kan haddii meesha oo ay ku qoran tahay DEX haddii aad rabtid inaad furtid waxaa muhiim ah inaad raadsid bitcoin pair level 10. markii aad level 10 ay gartid keliya ayaa waxaa ku furmi doono DEX. waa sidaas. tusaale waxaa loo baahan yahay qaarkood xitaa wuxuu ku weydiinayaa ku invite garee qof markii qof aad ku invite gareys kadib maarti uu ku furmaa. qaybtan kale oo ay ku qoran tahay NFT marketing haddii aad rabtid inaad furtid waxaa waajib ku ah NFT collection launch qaybta waa inaad meelahan ka raadisaa ama waxaad ka raadinaysaa PRN team ama waxaad ka raadinaysaa market ama halkan ama halkan ama halkan levelku uu ku weydiiyo ayaad gaarsiinaysaa. markuu haddii uu ku weydiiyo level 5 waxaad gaarsiinaysaa level 5 then si uu kugu furmo ma fahantid. qaabkaas waaye haddii aad fahantay fadlan like iyo subscribe iga caawi laakiin haddii aadan fahansaneen commentiga su-aal iga soo weydii insha allah waxaan kasoo sameyn doonaa haddana qayb kale si aad usii fahantid. waqtina ma jiro keliya waxaan haysanaa si aad halkan u jeedaan 22 cisho 22 cishaan kadib qof walba wuxuu filinayaa passive income. marka passive income kaas si aad ugu faa'iidaystid waxaa laakiin muhiim ah ton keeperkaaga in aad lacag ku shubatid ma fahanti ama $50 ama $30 $20 wax alla waxay tahay ku shubo ma fahanti. markii aad ku shubatid hadhow markii oo lasoo list gareeyo si aad oo macnaha aad u swap gareysid laakiin ha filin adigoo wax lacaga oo uusan kaa bixin oo macnaha gas fee mar walbo oo aad swap gareynaysid 2 coin maartay gas fee waa muhiim waay. waxaad kasoo iibsan kartaa maartay Binance ama sidoo kale waxaad ka iibsan kartaa Bybit. haddii oo aadan haysanin linki wuxuu yaalaa qaybta hoose isdiiwaangeli markii aad account aad furatid lacag ku shubo markii aad lacag ku shubatid maartay waxaad soo degsataa account cusub oo waxaad furanaysaa oo maartay ton keeper haddii uu ku furan yahay qaybtana galaysaa oo ton keeperka ayaad galaysaa kadib meesha ay qoran tahay receive ku dhufo kadib copy garee waxaad tegaysaa Binance-gaaga lacagtaada maartay account-ka maartay ku shubo. haddii aad rabtid inaan ka caawiyo qaabka oo loo swap gareeyo xitaa waad ila soo xiriiri kartaa waxaan ka caawinaa insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.